qaar ka mid ah dawladaha Carabta ayaa sheegay in ay Falastiin ku taageerayaan sidii ay u heli lahayd xuquuqda sharciga ah ee ay leedahay xilli Israa'iil ay sheegtay in ay dib u bilaabayso deegaamaynta qayb ka mid ah dhulka Falastiin. Faafahinta warbixintan waxaa Qaahire ka soo diray wariyaheena Xuseen Cusmaan Daxnuuni. wasiirada arrimaha dibadda dalalka Masar, Jordan, Saudi Arabia, Morocco, Tunisia, Oman, Kuwait iyo xogayaha guud ee jaamacadda Carabta ayaa xaqiijiyay in ay garab taagan yihiin sidii Falastiin ay u heli lahayd xuquuqdeeda sharciga ah oo ay ugu horeeyaan xorriyadda iyo madaxbannaanida. wasiirada arrimaha dibadda ee dawladahani oo uu weheliyo xogayaha guud ee jaamacadda Carabta Ahmed Abul Ghaid iyo wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin ayaa isku raacay sharcinimada sidii loo heli lahaa dawlad Falastiin leedahay oo caasimadeedu ay tahay bariga Qudus iyada oo la raacayo hindisaha nabadda ee dawladaha Carabta. shirkan ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar, Morocco, Tunisia, Kuwait, Jordan, Oman, Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabta oo ay ku baaqday dawladda Jordan oo lagu qabtay aalada fogaan araga ayaa sidoo kale lagu diiday in dawladda Israa'iil ay dhisato qayb ka mid ah dhulka reer Falastiin taasoo xadgudub ku ah bay yiraahdeen qaraarada qaramada midoobay iyo qaanuunka caalamiga ah ee tusmeynaya xuduudda Israa'iil iyo Falastiin ee sanadii 1967. waxaan si adag uga digaynaa in Israa'iil ay jabiso qaanuunka caalamiga ah iyo qaraarada qaramada midoobay taasoo keeni karta in ay dhaawacdo dadaalada geedi socodka nabadda ee lagu doonayo sidii loo heli lahaa laba dawladood oo Israa'iil iyo Falastiin ay leeyihiin oo jaar ah ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay shirka ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi iyo xogayaha guud ee jaamacadda Carabta. warka ka soo baxay qaar ka mid ah wasiirada dawladaha Carabta ee ka shiray qadiyada Falastiin ayaa si adag loogu sheegay in ay ku dhagan yihiin fulinta qodobadii ka soo baxay shir madaxeedka Carabta ee lagu qabtay magaalada Beirut sanadii 2002 kaasoo lagu go'aamiyay sidii heshiis nabad ah oo cadaalad ah looga hirgelin lahaa bariga dhexe iyadoo Israa'iil ay ka baxayso dhammaan dhulka Carabta oo ay qabsatay sanadii 1967 si loo dhiso dawlad Falastiin ay leedahay oo madax bannaan isla markaasina dawladaha Carabta xiriir caadi ah ay la yeeshaan dawladda Israa'iil. xogayaha guud ee jaamacadda Carabta Ahmed Abul Ghaid iyo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Saudi Arabia, Masar, Tunisia, Morocco, Kuwait, Jordan, Oman iyo Imaaraadka Carabta ayaa farta ku fiiqay in xalka bariga dhexe uu ku jiro in la fuliyo baaqyada dawladaha beesha caalamka ee ah in la helo laba dawladood oo Falastiin iyo Israa'iil ay leeyihiin oo jaar ah oo nabad ku wada nool. waxaan aad ugu bogaadinaynaa dadaalada dawladaha daneeya xiisada Falastiin iyo Israa'iil gaar ahaan dawladaha reer galbeedka oo si weyn ugu howlan sidii qadiyada Falastiin loogu dhamayn lahaa xal nabadeed oo dan ugu wada jirta dawladaha Carabta iyo Israa'iil. arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli dawladda Israa'iil ay sheegtay in deegaameen cusub ay ka bilaabayso qaybo ka mid ah daanta galbeed iyo marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. dawladaha Carabta iyo maamulka Falastiin ayaa sharci daro ku tilmaamay talaabada Israa'iil dhismayaal cusub ay kaga dhisanayso dhulka reer Falastiin. xiisada u dhaxaysa dawladaha Carabta iyo Israa'iil ayaa cirka isku sii shareerayay sanadihii ugu dambeeyay kadib markii Israa'iil ay sheegtay in caasimadeedu ay u wareejinayso magaalada Qudus ama Jerusalem. dawladda Mareykanka ayaa ka mid ah dawladaha reer galbeedka ee sheegay in safaaradaha ay ku leeyihiin magaalada Tel Aviv ay u wareejinayaan magaalada Qudus taasoo si weyn ay ugu caroodeen shucuubta iyo madaxda dawladaha Carabta iyo Islaamka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.